kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa Garaa TV waad uga barateen wararkii ugu dambeeyay ee geyiga Soomaalida iyo caalamka oo dhan qodobadaan idin soo gudbin doonana waxaa kamid ah madaxweyne Farmaajo oo damaanad qaaday nolosha ubad uu ka tagay askari u geeriyooday difaaca dalka kadib markii uu ku booqday isbitaalka Yardameeli ee magaalada Muqdisho ciidamada cirka ee dawladda Soomaaliya oo qalqalgeliyay dawladda Kenya iyo falanqeeyo siyaasadeed oo madaxda Kenya ka dalbaday in ay qaramada midoobay u gudbiyaan dacwad ka dhana dawladda Soomaaliya maamulka Galmudug oo Puntland uga digay in ay ku soo hubeeyaan ururka Ahlus Sunna wal Jameeca oo ka soo horjeeda dhismaha dawlad goboleedka Galmudug ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo xil wasiirnimo u magacaabay gabar ka soo jeeda deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya xildhibaan ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ku eedeeyay dawladda Mareykanka in ay dad rayida ku xasuuqday gobolka Shabeellaha Hoose akhbaaraadka dibadda ee aad ku daawan doontaan wararkeenana waxaa kamid ah madaxweyne Donald Trump oo xayiraad dhinaca socdaalka ku soo rogay dalalka qaaradda Yurub iyo dawladda Turkiga oo beenisay in ciidamadeedu ay ka baxayaan qaybo kamid ah gobolka Idlib ee waqooyiga Suuriya qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan haddii Allah awood leeyahay ogolaadee u diyaar garooba saaxiibayaal iyagoo faahfaahsan isku soo noqod habboon mar kale daawadayaal halkani waa Garaa TV xasuusno haddii aad joogtid waqtiga salaada soo guda waajibka Alle ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan aan ku horeynay daawadayaal sidaad ku maqlayseen wardhaca wararka Garaa TV madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isbitaalka Yardameeli ee magaalada Muqdisho ku booqday qoyska uu ka tagay Allah u naxariistay Cabdinaasir Cabdulle Gacal oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya madaxweynaha oo dul istaagay xaaladda caafimaad ee laba wiil oo mataana ah oo isbitaalka ugu dhashay marwada marxuumka ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay damaanad qaadayso nolosha ubadkani maadaama aabahood uu u shahiiday difaaca dalka iyo dadka Soomaaliyeed Allah u naxariistay marxuum Gacal ayaa waxa uu naftiisa u hubeeyay difaaca dalkiisa iyo dadkiisa isagoo xilfadiisa waryanimo la garab taagnaa ciidamada kale ee qalabka sida kuwaas oo safka hore kaga jiray furimaha dagaalka madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in marxuumku nolosha caadiga ah ee dhigiisa wariyaasha ka howlgala gudaha dalka uu ka doorbiday in uu qalabkiisa iyo aqoontiisa geliyo sidii uu kaalin uga qaadan lahaa dib u xoreynta dalka isaga oo muraayad u noqday guulaha geesiyaasha ciidamada qalabka sida ay ka soo hooyeen dagaalka ay kula jiraan ururka Al-Shabaab sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha ayaa dareen farxad la u muujiyay marka uu kor tagay marwada uu ka geeriyooday marxuumkaasi ka tirsanaa ciidamada qalabka sida ee dawladda Soomaaliya iyo laba mataana ah oo ay ku dhashay isbitaalka waxaana uu sheegay in dawladda Soomaaliya aysan marnaba hilmaami doonin kuwa u dhintay difaaca dalka iyo dadka Soomaaliyeed waxa uu xusay in si gaar ay dawladdu gacanta ugu hayn doonto ubadka uu ka tagay wariyahaasi ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya dhanka kale madaxweynaha ayaa booqday qaar kamid ah bukaanada ku jira isbitaalka Yardameeli waxauna warbixino ku saabsan xaaladooda caafimaad ka dhageystay dhaqaatiirta dabiibaysa iyo agaasimaha isbitaalkaasi Ibrahim Maxamed Xasan waxaana talaabadani uu qaaday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay noqonaysaa markaasi mid dhiiri gelinaysa dhammaanba askarta dagaalka kula jirta xogaga ururka Al-Shabaab meelo badan oo kamid ah wadanka Soomaaliya waxaa isu soo taraya cabsida iyo walaaca ay dawladda wadanka Kenya ka qabto awoodda ciidamada cirka ee loo tababaray dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa dhulka oo muddooyinkii aynu soo dhaafnay dib loo soo celiyay maqaamkii ay ku lahaayeen geeska
geeska Afrika. Falanqeeya siyaasadeed oo caan ka gudaha dalkaasi Kenya isla markaana lagu magacaabo David Mastanga oo u waramayay warbaahinta maxalliga ah ayaa walaac ka muujiyay awoodda ay la soo baxeen ciidamada cirka ee dowladda Soomaaliya iyo kuwa qalabka sida ee dhulka oo uu sheegay in loo diyaariyay sidii ay ula wareegi lahaayeen hawada iyo biriga dalka Kenya. waxa uu xusay in dowladda Turkigu ay maskax iyo maalba gelisay in ay dib u soo celiso xuduudda ciidamada militariga ee dowladda Soomaaliya isla markaana uu socdo qorshe ay dowladda federaalka ee Soomaaliya haatan ku damaacinayso in ay ku weerarto badda iyo biriga dalka Kenya maadaama dowladda Turkigu ay muddooyinkii u dambeeyay ka taageertay awoodda dhinaca ciidamada. Falanqeeye Mastanga ayaa dhinaca kala sheegay in mas'uuliyiinta dowladda Kenya ay ka hurdaan dhaqdhaqaaqyada ay wado dowladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana ay ku doonayso in ay ku maquuniso wadanka Kenya isagoo sheegay in madaxda dalka Kenya ay ku mashquulsan yihiin waxyaabo kale laakiin ay jirto khatar weyn oo ka soo wajahan dhinaca dowladda Soomaaliya. mas'uuliyiinta dowladda Kenya ayuu ku baaqay in ay qaramada midoobay u gudbiyaan dacwad ka dhana dowladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana ay ku eedeeyaan in ay doonayso in ay boobto biriga iyo badda Kenya isla markaana muddooyinkii u dambeeyay ay arintaasi waqti badan gelisay dowladda dhexe ee Soomaaliya. isagoo hadalkiisaasi wata ayuu dhinaca kala sheegay in dowladda Turkigu ay qayb ka tahay qorshaha ballaaran ee lagu qalabeeyay ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya kaasoo u muuqda buu yiri mid halis gelinaya jiritaanka wadanka Kenya. hadalka falanqeeyahani dhinaca siyaasadda ee u dhashay dalka Kenya waxa uu qayb ka yahay cabsi fara badan oo ay qabaan inta badan siyaasiyiinta iyo mas'uuliyiinta Kenya oo ku aadan in ciidamada cirka ee loo tababaray dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa dhulka ee dhaqdhaqaaqyada ka wada xuduudda labada dal in ay doonayaan in ay la wareegaan qaybo ka mid ah gobolka ay degto Soomaalida NFD ee waqooyi bari Kenya. waxaana haatan falanqeeyahani uu ka sii digay in laga hortago dhaqdhaqaaqa dowladda Soomaaliya ay ku doonayso in ay gacanta ugu dhigto gobolka waqooyi bari Kenya. maamulka Galmudug ee magaalada Dhuusamareeb ayaa digniin culus u diray maamulka Puntland oo ay sheegeen in ay hubaynayaan qaar ka mid ah jamhadaha dagaalka kula jira dhismaha dowlad goboleedka Galmudug. afayeenka maamulka Galmudug Cismaan Ciise Nuur Taardhuleed ayaa digniin u diray maamulka Puntland oo ku eedeeyay in ay bixinayaan taakula ay siinayaan ururka Ahlusunna wal Jameeca. afayeenka Galmudug oo ka hadlayay tagitaanka madaxda Ahlusunna ee magaalada Garowe ayaa sheegay inuusan isaga ka xumayn soo dhaweyntii loo sameeyay hogaanka Ahlusunna balse waxa uu tilmaamay in Puntland aysan marnaba raalli ka ahayn dhismaha Galmudugta loo dhan yahay sida uu hadalka u dhigay. waxa uu uga digay Puntland inay faragelin ku samayso arrimaha gudaha ee maamulka Galmudug isagoo sheegay in haddii Puntland ay joojin weydo taakulaynta jamhadaha iyo faragelinta gudaha ee maamulka Galmudug ay tashan doonaan dadka reer Galmudug isla markaana ay ku dhaqaaqi doonaan go'aan ka dhana maamulka Puntland. waxa uu sheegay in Puntland oo ah maamul deris la ah Galmudug looga baahan yahay inay ilaaliyaan dowladnimada waxauna ku eedeeyay madaxda Puntland inaysan marnaba jeclayn in ay dhisanto maamulka Galmudug isagoo sheegay in madaxdii kala dambeysay ee maamulkaasi ay waqti dheer ku bixiyeen sidii ay u kala furfuri lahaayeen hay'adaha dowlad goboleedka Galmudug. Taardhuleed ayaa dhinaca kale madaxdii hore ee Ahlusunna wal Jameeca ee looga adkaaday dagaalkii Dhuusamareeb ku eedeeyay in ay ahaayeen shakhsiyaad adana gaara kale maamulka Galmudug isla markaana uu ku tilmaamay kuwa aan lahayn hadaf iyo qorshe degan. afayeenka dowlad goboleedka Galmudug waxa uu shacabka ugu baaqay inay la qabsadaan nidaamka cusub ee ka dhashay Galmudug isla markaana ay iska iloobaan maamulkii hore ee Ahlusunna sid loo gaaro horumarka Galmudugta loo dhan yahay. afayeenka ayaa sidoo kale ku hanjabay inaysan aqbali doonin wax bannaan baxa ama waxyaabo keeni kara amni darro balse waxa uu sheegay in dadka shacabka ahi ay muujin karaan cidda ay taageerayaan isla markaana ay dhigi karaan dibadbaxyo nabadeed
iyadoo aan la ogolaan doonin kuwa liddi ku ah amniga magaalada dhuusamareeb mar uu ka hadlayay hadalhaynta ku saabsan in bixitaanka madaxda ahlusunna ee magaalada dhuusamareeb uu keeni karo inay al-shabaab weerara ku soo qaadaan ayuu sheegay in weli ciidamada ku sugan dhuusamareeb ilaa matabaan ay yihiin kuwii ahlusunna islamarkaana weli ilaalinaya amniga deegaanada maamulka galmudug waxaan idaacadaha ka maqlayay haddii ay hogaanka ahlusunna meesha ka baxaan in shabaab ay imaanayaan waxaas wax la aqbali karo ma ahan waxaana idiin sheegayaa in dhammaan ciidamada jooga galmudug ilaa matabaan dhuusamareeb ay yihiin kuwii ahlusunna ayuu hadalkiisa ku yidhi afhayeenka guud ee maamulka galmudug ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya dr abiy axmed ayaa qaatay go-aan hadalhayn badan dhaliyey kadib markii gabar soomaali ah uu u magacaabay xubin ka tirsan golaha wasiirada ee dalkaasi itoobiya wasiirka haweenka iyo caruurta dalka itoobiya ayaa loo magacaabay filsan cabdulaahi axmed oo sidoo kale ah milkiilaha telefishinka kaliya ee madaxa bannaan ee deegaanka soomaalida itoobiya oo lagu magacaabo nabadda t v filsan cabdulaahi axmed ayaa waxa ay ka mid tahay dhallinyarada ku dhashay dowlad deegaanka soomaalida itoobiya islamarkaana ugu firfircoon waxaana magacaabisteeda soo dhoweeyey inta badan soomaalida deegaanka dalkaasi itoobiya baarlamanka dalka itoobiya oo kulan ku yeeshay magaalada ardisababa ee xarunta dalkaasi ayaana si degdega u ansixiyey magacaabistani ka timid ra-iisul wasaare abiy axmed ee wasiirad filsan cabdulaahi axmed iyo laba wasiir oo kale oo isla waqtigaasi iyagana la magacaabay filsan cabdulaahi oo u ololeyn jirdhay nabadda ayaa ka mid ah 3 wasiir oo cusub kuwaas oo uu magacaabay ra-iisul wasaaraha dalkaasi itoobiya dr abiy axmed islamarkaana uu meel mariyey laakiin hadalhayn ka duwantan dowlad deegaanka soomaalida itoobiya ayaa ka dhalatay guud ahaan shucuubta dalka itoobiya taasoo ku aadan in xil wasiirnimo loo magacaabo haweenay ka soo jeeda deegaanka soomaalida itoobiya dhaqamadaasoo horey aan looga baran mas-uuliyiintii kala dambaysay ee dalkaasi itoobiya markii uu jiray xukunka tigreega laakiin ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa muddooyinkii u dambeeyey waday isku shaandhayn ku aadan dhinaca siyaasadda isaga oo dad badan ku soo daray siyaasadda cusub ee dalkaasi itoobiya gaar ahaan qoondada haweenka oo uu sare u qaaday iyadoo maalin ka hor diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee laga leeyahay dalka maraykanka ay duqayn la beegsadeen gaari nuuca soomaalidu ay u taqaano caasiga oo marayay deegaanka ugunji oo u dhow degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose ayaa lagu soo waramayaa in duqayntaasi ay dhalisay khasaare ballaaran oo soo gaaray dad dhammaantoodba shacab ahaa duqaynta lala beegsaday gaariga ayaa waxaa ku dhintay 4 ruux oo shacab ahaa oo 3 ka midihii la sheegay in ay hal qoys ka soo jeedeen kuwaas oo caan ka ahaa gobolka shabeellaha hoose laguna magacaabi jiray reer xaaji xayeesi xildhibaan mahad doore oo ka mid ah baarlamanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa uu ku eedeeyey maraykanka inuu duqeyn ku dilay dad rayid ah oo aan waxba galabsan islamarkaana aysan ka fiirsanin duqeyntaasi ay ku dileen dadka berimageydada ahaa xildhibaanka oo waraysi siinayay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in duqayntaasi lala beegsaday gaari ay wateen dad shacab ah oo ehel ahaa islamarkaana halkaasi lagu dilay in ka badan 6 ruux oo rayida dowladaha soomaaliya iyo maraykanka ayuu xildhibaanku ka dalbaday inay caddayn u keenaan in dadka ay dileen ay ahaayeen al-shabaab hase yeeshee dadkaasi haddii ay noqon waayaan shabaab laga doonayo magdhow iyo sidoo kale in cadaaladda la marsiiyo dadkii ka dambeeyey falkaasi wuxuushnimada xildhibaankani ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya waxa uu sheegay inaan loo dulqaadan doonin duqaymaha ay dowladda maraykanku ka geysanayso qaybo ka mida gobolkaasi shabeellaha hoose iyadoo la bartilmaameedsanayo gawaarida ay la socdaan dadka rayidka ahi dowladda maraykanka waxay muddooyinkii aynu soo dhaafnay kordhisay duqaymaha dhinaca hawada ah oo ay la bartilmaameedsanayso xoogaga ururka al-shabaab laakiin sidani si la mid ah waxaa marar badan dhaca in duqaymahaasi ay waxyeelo
waxyeelo ba'ani ka soo gaarto dadka rayidka. waa tahay daawadayaal wararka Garaad TV ayaad la socotaan haatana akhbaaraadka dibadda. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in xayiraad dhanka socdaalka ah uu ku soo rogay dadka dalkiisa ka soo galaya dhinaca qaaradda Yurub. arrintan ayuu madaxweynuhu ku sababeeyay sidii looga gaashaaman lahaa faafidda caabuqa COVID-19 oo ku fiday meelo badan oo kamid ah caalamka. qodbad uu si toosa telefishinka uga jeediyay madaxweyne Trump ayuu ku sheegay in muddo 30 cisho la hakiyay dhammaanba duulimaadyadii Mareykanka uga imaan jiray qaaradda Yurub. xayiraadaas ayuu Trump ku sheegay inay tahay mid adag balse loo baahan yahay. waxa uuna raaciyay in aysan ku ekayn oo kaliya dalka Britain oo xanuunkani faraba'an uu ku hayo balse uu saameyn doono dhammaanba dalalka qaaradda Yurub. wadanka Mareykanka 135 kiis oo xanuunkana ayaa la xaqiijiyay halka 38 qofna ay geeriyoodeen. si loo joojiyo in kiisas cusub ay dalkeena soo galaan waxaan hakinay dhammaan duulimaadyadii nooga imaanayay qaaradda Yurub ayuu yiri madaxweyne Donald Trump. waxaana uu sheegay in xayiraadani si dhaqsa loo dhaqan gelin doono. madaxweyne Trump waxa uu dalalka midowga Yurub ku eedeeyay inay ku guuldareysteen inay qaadaan tallaabooyin looga gaashaaman karo caabuqa coronaviruska si la mid ah dowladda Mareykanka. waxa uu hadalkan jeedinayay saacado uun kadib markii dalka Talyaaniga oo ah dalka ugu badan ee xanuunkani uu saameeyay qaaradda Yurub marka laga soo tago Shiinaha uu ku dhawaaqay tallaabooyin dheeraad ah oo wax looga qabanayo faafidda cudurkaasi. dowladda Talyaaniga ayaa sheegtay in la xirayo dhammaanba dukaamada wax laga iibsado marka laga reebo kuwa raashinka iyo dawooyinka. Mareykanka waxa kale oo uu sheegay in xayiraada sidoo kale ay saameyn doonto ganacsiga iyo badeecadaha Mareykanka uga yimaada qaaradda Yurub. madaxweyne Donald Trump ayaa sidoo kale ku dhawaaqay lacago amaah ah oo la siinayo ganacsatada yaryar ee uu saameeyay xanuunka. wuxuuna aqalka Koongareeska ugu baaqay inay meel mariyaan qorshe canshuur dhaaf ah inta lagu guda jiro saameynta cudurkaasi. mas-uuliyiinta dalka Mareykanka waxay sheegeen in guud ahaan Mareykanka uu ku yar yahay xanuunka corona balse walaaca ay qabaan uu yahay kiisas cusub oo dhowaan la xaqiijiyay. dadaalo lagu xakameeyo xanuunka ayaa ka bilowday Mareykanka. ciidamada militariga ayaa loo daabulay magaalada New York City halkaas oo la sheegay inay ka mid tahay meelaha uu xanuunku ka sii faafayo. ciidamada ayaana raashin iyo waxyaabaha kale ee aasaasiga ah u qaybin doona dadka lagu amray in ay guryahooda ku nagaadaan. hay'adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyay WHO ayaa markii ugu horeysay ku dhawaaqday in caabuqa coronaviruska uu yahay musiibo ku habsatay caalamka oo dhan. WHO ayaa muddo isha ku haysay dhaqdhaqaaqa cudurkani isagoo haatan ku faafay inta badanba dalalka caalamka oo dhan. wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Turkiga Hulusi Akar ayaa beeniyay in ciidamada dalkiisu ay iskaga baxayaan qaybo kamid ah gobolka Idlib ee waqooyiga galbeed ee Suuriya kadib heshiiskii xabad joojinta ee ay gaareen dalalka Turkiga iyo Ruushka. isagoo wariyaasha kula hadlayay magaalada Ankara ayuu been abuur ku tilmaamay warar soo baxayay oo sheegayay in militariga Turkidu ay iskaga siqeen inta badan goobihii ay kaga sugnaayeen gobolka ay colaaduhu ka jiraan ee Idlib. isagoo dhanka kalena xusay in heshiiska xabad joojinta ee Turkiga iyo Ruushka aanay meelna kaga jirin in ciidamada militariga Turkigu ay baneeyaan gobolkaasi. waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday howlgalka wadajirka ah ee ay roondada ku sameynayaan ciidamada Turkiga iyo Ruushka kaasoo ka bilaaban doona inta badan xalaqada gobolka Idlib. dhanka kale saraakiil dhinaca militariga ah oo ka socota dalalka Turkiga iyo Ruushka ayaa ku kulmay magaalada Ankara si ay iskula dejiyaan istiraatiijiyad ku aadan howlgalka roondada ah ee ku jiray xabad joojintii ay kala saxiixdeen madaxweyne Putin iyo Erdogan isla markaana xal nabadeed looga gaarayo dagaalka gobolka Idlib ee waqooyiga Suuriya.
wasiirka gaashaandhigga Akaar ayaa xusay in ciidamadoodu ay sii joogtayn doonaan howlgalladooda gobolka Idlib balse la hakiyay weerarada tooska ah ee gobolkaasi looga qabanayo kuwa uu ku tilmaamay macangegiinta ee u shaqeeya taliska Asad ee Suuriya. wararkii ugu dambeeyay ee geyiga Soomaalida iyo caalamka oo dhan ayaa intaasi ku dhanaatanaya kulanti dambe nabadgelyo.